taariikhda aadanaha. Waxaa jira dad magacoodu ku qoran yahay buugaagta dagaalka, baalalka taariikhda iyo baalooyinka dariiqyada. Sababtuna waa in dalkooda u dhaawacmeen, xabsi u galeen ama u geeriyoodeen. Laakiin waxaa jira kuwo kale oo iyaga oo aan xabad rigin bedelay jihada caalamku u socdo. Maanta waxaynu ka hadlaynaa ninkii ay CIA-du ku tilmaantay basaaskii ugu cajiibsanaa ee abi soo mara taariikhda aadanaha. Wuxuu ahaa nin u dhashay dalka Jarmalka, xubinna ka ahaa xisbigii Naasiga ee dalkaas. Laakiin habeen kasta fariimo sir ah u diri jiray magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Isagu wuxuu ahaa saaxiibka dhow ee safiirada iyo taliyayaasha dagaalka, isagoo dhinacna ka ahaa sirdoonka ugu weyn ee Midowgii Soviyeeti. Sidee ayay u dhacday in nin keliya uu badbaadiyo caasimadda Moscow isagoo fadhiya kumanaan meel u jirta oo ah gudaha Tokyo? Kani waa Research Soch, ninkii hal fariina ku bedelay natiijada dagaalkii labaad ee adduunka. Haddaba ku soo dhowaada sheekada waalida ah ee basaaskii dhowrka weji lahaa. Haddii ay tahay markii kugu horreysay channelka, fadlan subscribe garey, muuqaalkana like saar si uu u gaaro dad badan. Sheekadeennu waxay ka bilaabmaysaa sanadkii 1895 magaalada Baku ee dalka Azerbaijan oo waqtigaas qayb ka ahayd boqortooyadii Ruushka. Waxaa ku dhashay wiil yar oo ay iska dhaleen qoys isku dhaf ah. Aabihiis wuxuu ahaa injineer Jarmal ah oo saliidda ka shaqeeya, halka hooyadiisna ay ka soo jeeday dalka Ruushka. Markuu 2 sano jiray, qoysku waxay u guureen magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Markii uu qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka sanadkii 1914, Research Soch wuxuu ku biiray ciidanka Jarmalka isagoo xamaasad ay ku jirto. Laakiin xaqiiqada dagaalku ma ahayn sidii uu filayay. Sanadkii 1916, Soch waxaa ku dhacay madaafiic aad u culus, waxaana ka jabay labadiisii lugood. Isbitaalka dhexdiisa isagoo jiifa ayuu bilaabay inuu isweydiiyo, maxay dadku isku gowracayaan, maxayse tahay ujeedada dagaalkan? Halkaas ayuuna ka bilaabay inuu akhriyo qoraallada Karl Marx, filosoofkii weynaa. Wuxuu aaminay in nidaamka hantigoosadku uu yahay kan keena dagaalka, shuuciyaduna ay tahay xalka keliya ee dagaalada iyo khilaafyada looga hortagi karo. Markii uu dagaalku dhammaaday, Soch ma ahayn askari Jarmal ah oo caadi ah, ee wuxuu ahaa shuuci aaminsan falsafadda kacaanka. Sanadkii 1924, Soch wuxuu u guuray magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Sirdoonka militariga ee Soviyeeti ee loo yaqaanay GRU ayaa isla markiiba ogaaday ninkan, maadaama uu ahaa nin aqoon badan, ku hadla dhowr luuqadood, una dhashay dalka Jarmalka, taasoo ka dhigaysay basaas dahab ah. Shaqadiisii ugu horreysay waxay ka bilaabmatay magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha sanadkii 1930. Halkaas wuxuu iska dhigay wariye Jarmal ah, wuxuuna dhisay shabakad weyn oo basaasnimo, isagoo xogta ka helaya diblomaasiyiinta iyo madaxda ciidanka. Halkaas ayuu markii ugu horreysay kula kulmay Hotsumi Osaki, oo isagana ahaa wariye Jabaan ah oo isna shuuciyada taageera. Labadan ninna waxay dhiseen saaxiibtinimo bedeli doonta taariikhda. Sebtembar sanadkii 1933, Research Soch wuxuu cagta dhigay magaalada Tokyo ee dalka Jabaan. Howlgalkiisu wuxuu ahaa mid halis badan. Wuxuu ahaa nin shuuci ah oo loo diray dalka Jabaan oo xilligaas saaxiib dhow la ahaa Jarmalka Hitler. Si uu u dhuunto, Soch wuxuu qaatay aqoonsi ah inuu yahay wariye taageersan Naasiga, wuxuuna ku biiray xisbiga Naasiga ee Jarmalka. Wuxuu noqday nin aad looga xushmeeyo safaaradda Jarmalka ee Tokyo. Soch wuxuu ahaa nin caqli badan. Wuxuu ogaaday in qofka raba inuu sir helo uusan noqonin qof aamusan oo dhuumasho jecel. Beddelkeedana wuxuu noqday ninka ugu caansan xafladda safaaradaha. Wuxuu saaxiib dhow la noqday safiirka Jarmalka, Eugen Ott, wuxuuna ku kalsoonaaday Eugen Ott Soch ilaa heer uu ogolaaday inuu akhriyo fariimaha sirta ah ee ka imaanaya Berlin. Research Soch wuxuu noqday indhaha iyo dhagaha Moscow ee gudaha safaaradda cadowgooda. Sanadkii 1941, Research Soch wuxuu helay xogtii ugu muhiimsaneed, taasoo ah in Jarmalku uu qorsheynayay inuu weeraro Midowgii Soviyeeti. Soch wuxuu isla markiiba Moscow u diray fariin cad oo leh, Jarmalku waxay weerar soo qaadi doonaan 22 Juun iyagoo isticmaalaya 170 qaybood oo ciidan ah. Howlgal loogu magac daray Operation Barbarossa. Tani waxay ahayd xog sax ah oo maalin iyo saacad leh. Laakiin waxaa jirtay caqabad weyn, taasoo ahayd in Joseph Stalin oo ahaa hogaamiyihii Midowgii Soviyeeti uu ahaa nin shaki badan, wuxuuna u qabay in Soch uu yahay nin laba wajiile ah oo raba inuu iska hor keeno isaga iyo Hitler. Stalin wuxuu yiri waa ninkaas doqonka ah ee maqaayadaha iska fadhiya, wuxuuna dhayalsaday fariinta Research Soch. Ruushka lagama samayn wax diyaar garow ah oo ku aadan dagaalka ku soo socda.
22 Juun sanadkii 1941 sidii Soch sheegay, Jarmalku waxay weerareen Ruushka. Malaayiin askari oo Ruush ah ayaana ku dhintay, qaar kalena lagu qabtay dhowrkii bilood ee ugu horreeyay dagaalka. Soch wuxuu dareemay waqtigaas care iyo niyad jab, maadaama xogtii uu naftiisa u biimeeyay la iska diiday. bishii Oktoobar sanadkii 1941 Jarmalku waxay u jirsadeen caasimadda Ruushka ee Moscow dhowr iyo 10 kiiloomitir oo keliya. Stalin, hogaamiyihii Ruushka, wuxuu ku jiray xaalad naxdin leh. Su'aasha ugu weynsan waxay ahayd, miyay Japan naga soo weerari doontaa dhinaca bari maadaama ay xulufo la ahayd Jarmalka? Haddii Japan ay Ruushka ka soo weerarto dhinaca Siberia, Ruushku wuu dumi lahaa sababtoo ah ma lahayn ciidan laba jiha u dagaalama. Soch iyo shabakadiisu waxay bilaabeen howlgal wali ah, waxayna ogaadeen in Japan ay go'aansatay inay u weecato dhinaca koonfurta badweynta Pacifiga si ay u weerarto Mareykanka halkii ay Ruushka weerari lahayd. Soch wuxuu diray fariintii ugu dambeysay isagoo u sheegay Ruushka, Japan ma soo weerari doonto Ruushka ilaa Moscow laga qabsado, maadaama ciidanka Jarmalku dhowr kiiloomitir oo keliya u soo jirsadeen magaalada Moscow. Markaan Stalin wuxuu rumaystay xogta Soch, wuxuuna si degdeg ah ugu soo raray 18 qaybood oo ciidan ah, 1700 oo taangi iyo 1500 oo diyaaradood, wuxuuna keenay difaaca Moscow. ciidankaas cusub ee Siberia ka yimid ayaa Jarmalkii barafka ku xayirnaa dib u riixay. Moscowna waxaa laga badbaadiyey gacanta Jarmalka. Dagaalkiina wuu isbedelay. Richard Soch wuxuu qabtay wax aysan qaban karin 100 guuto oo ciidan ah, taasoo ahayd inuu bannaanka keenay sirta cadowga. Laakiin guushaas weyn kadib, daruuro madow ayaa soo dul degay Richard Soch. Sirdoonka Japan waxay ogaadeen inuu jiro raadiyo qarsoon oo magaalada Tokyo dhexdeeda fariimo looga diray cadowgooda. Waxay bilaabeen inay mid u qabtaan dadka shuuciga ah. 18 Oktoobar 1941 ayaana la xiray Richard Soch. Booliiska markii hore ma rumaysan karin in ninkan caanka ah ee safaaradda Jarmalka dhex fadhiya uu yahay basaas Ruush ah. Xitaa safiirka Jarmalka Eugen Ott wuxuu u dagaalamay in Soch loo sii daayo, isagoo aaminsanaa inuu yahay dhibane aan waxba galabsan. Laakiin markii Richard Soch uu qirtay shaqadiisii basaasnimo, Eugen Ott noloshiisu way duntay maadaama uu ahaa ninkii xitaa u oggolaaday inuu akhriyo fariimaha sirta ah. Soch wuxuu xabsiga ku jiray 3 sano. Japanna waxay dhowr jeer u soo bandhigtay Moscow inay Richard Soch ku beddeshaan maxaabiis Japanese ah. Laakiin Stalin, hogaamiyihii midowgii Sofiyeeti, isagoo raba inuu iska fogeeyo wax kasta oo basaasnimo ah, wuxuu ku jawaabay ma garanayo ninka la yiraahdo Richard Soch. ninkii naftiisa u hibeeyey midowgii Sofiyeeti waxaa inkiray dalkii uu u shaqaynayay. 7 Nofeembar 1944 oo ahayd sanad guuradii kacaanka Ruushka, Richard Soch waxaa lagu daldalay xabsiga Sugamo. Ereyadiisii ugu dambeeyayna waxay ahaayeen kacaanka caalamiga ahi ha noolaado, taasoo ula jeeday inuu weli aaminsan yahay fikirka shuuciyada ah ee ah in kacaanku noqdo mid dunida oo dhan ka dhaca. Richard Soch wuxuu ahaa nin dhowr weji lahaa. Jarmalka wuxuu u ahaa Nazi, Japanna wuxuu u ahaa wariye, halka Ruushkana uu u ahaa badbaadiye. Sanadkii 1964 kadib markii uu dhintay Stalin, midowgii Sofiyeeti ayaa si rasmi ah u qartay geesinimada Richard Soch, waxaana la siiyey biladda ugu sarreysa ee dalkaas. Wuxuu ahaa nin ku dhex noolaa marin habaabin iyo been si uu u gaaro hadaf uu rumaysnaa. Maanta magaciisu wuxuu ku dhex jiraa muuqaalada sirdoonka ee ugu waaweyn adduunka. Richard Soch wuxuuna baray in mararka qaar qalinka iyo xogta ay ka xoog badan yihiin hubka ugu culus ee dunida. Waxaana halkaas ku eg taariikhda basaaskii badbaadiyey Ruushka, Richard Soch.